mar qurah ayay ku dhiiratay inay ku socoto lugaheeda kadibna waxay si caadi ah ugu socotay lugteeda ayadoo xanuunna dareemaysa waxay ku soo laabatay xaafadda waxayna ahayd gabar faraxsan aniguna waxaan dareemayay farxad aad u weyn waxaana ii soo laabatay rajaan ku taamayey inaan mar uun arki doono kadib sida caadada ahayd ayaan habeenkii xaafadda soo aaday waana iska faraxsanaa markaan telefoonka ka wacayna waxay ahaydba gabar ka sii farxad badan sidaan maanta uga soo tagay waxaan ahayn dad farxadoo dhan ee agtooda taallo waxaan qaadanaynay waqtiyadeena ugu wanaagsan waxaan ahayn dad aad u wada faraxsan wada baashaalaya wada qoslaya iskuna qanacsan oo isfahmaya waxaan u kaxayn jiray xeebaha si aan ula soo qaato waqti farxad leh markaan xeebta tagno waan u sheekayn jiray waan socodsiin jiray waxaan qaadanaynay waqtiyada ugu wanaagsan uguna farxadda badan waxaan ku farxad gelin jiray sheeko qosol iyo weliba hadiyado waxaan ahayn dad isku qanacsan markii aan shaqada ka soo baxo waxaan ku soo booqan jiray xaafadda anigoo hadiyad u soo qaadayo waxaan ku farxad gelin jiray noloshayda oo dhan farxaddeenna ayaanan lahayn wax lagu qiyaaso xitaa habeer waxay iskugu kan ducayn jirtay inaan is helno oo waxayna dhihi jirtay waxaad tihiin dad isku soo baxaya waxaad tihiin dad faraxsan waxaan idiin rajaynaa farxaddiin inaysan intaanan ku dhammaanin faraxsanaada weligiin waan isla kiin jeclahay wallaahi iyo erayo kale anigana aad baan ugu faraxsanayn dhiirigelintayna siinaysa habyar weliba waxaan dareemaynay inaan nahay dad laysku ogol yahay weliba layskula qanacsan yahay farxaddana markaas waynoo sii saa'idaysay mar walba ee habyarna dhiirigelisana farxadda waynoo sii laba jibaarmaysay weliba farxad saa'ida ayaan ku sii dareemaynay xilli habeen ah markii aan ka soo baxay salaaddii cishe ayay soo wacday saaxiibtay waxay igu tiri cabdiraxmaan waxaa jira arrin aad u xun oo aan raba inaan kula wadaago adiga xaaladda sidaad moodaysid ma ahan gacliye waxaa jira dhibaato fara badan oo caawa aan dareemaya aniga waa naxay weliba waan taagnaan waaye waxaan dhowr jeer ku celceliyey maxaa dhacay xabiibtii maxaa kugu dhacay ii sheeg maxaa kugu dhacay ii sheeg qalbi waxayna igu tiri cabdiraxmaan waxaa maanta imaaday guriga hooyo iyo aabbo wada socda waxayna u imaadeen inay aniga xaaladdeeda arkaan kadibna waxayna soo go'aamiyeen aniga inay igu dari doonaan nin ka imaaday dalka kanada weliba soo maray dhanka hooyo waa nin iga weyn in badanna ku maqnaa dalka kanada familka ayuu siiyey lacag fara badan hooyo way ku qanacday hooyo waxay tiri far duco ama far habaar labadaas waa inaad mid doorataa anigana waxaan dareemayaa walwal fara badan habeer ayaa ka hor istaagi rabtay laakiin dhammaan way diiday waxayna noo sheegtay inay lacagtii qaadayba weliba ay diyaarinaysa arooska oona dhici doonaan 4 maalmood kadib aad baan u naxay weliba waxaan ku dhowaaday inaan istaaga ka dhaco dhidid fara badan ayaa iga yimid wadnahaygana aad buu u garaactamayey waxaan ku yidhi maxquul ma tahay waxaad igula hadlaysid mise waa kaftan ha igu ciyaarin xabiibtii wallaahi waxaan dareemayaa murugo waxaan dareemayaa xanuun waxaana dareemayaa ilin fara badan waa ku barya ha igu ciyaarin ma rumaysan karo xaaladdaas oo kale waayo waxaan ahaa qof rajo weyn leh waxaan ahaa qof mustaqbal weyn leh waxaan ahaa qof rajo weyn kaa lahaa waa ku baryaa idheh waa been oo haydhiin waxaan waa wax macquula xaqiiqatan aniga waan ku jeclahay waana ku jeclaaday qalbi biliis waa ku baryaa beeni hadalka ayaa ku dhegay wayna hadli weysay waxaana dareemayay inay ooyeyso dhowr jeer ayay igu tiri cabdiraxmaan way dhacday cabdiraxmaan way dhacday cabdiraxmaan way dhacday aniga waxaaba iga tagtayba korontadoo dhan waxaa noqday qof mahsan weliba hadli waaye telefoonka ayaana igu jartay kadib waxaan fadhiistay darjiinka albaabka hore ee gurigayga waan xaroon waaye walwal dartii naxdin iyo murugo ayaa dhammaantay saarantay waxaa noqday ruux dareemaya walwal waxaa noqday ruuxay ka dheeraanaysa gacalisadiisa weliba uu ku riyoon jiray waxaa noqday nin riyadiisa mugdi ay sii galayso ruuxa uu ku taamay inuu guursado calaf la wadaago ay si dhaqsala ku cidlaynayso waxay la noqotay waxaan aniga rumaysan waayey waxaan gudaha u soo galay gurigayga waxaan fadhiistay sariirta dhidid fara badan ayaa iga baxayey habeenka oo dhanna waan seexan waayey mar waan soo kacaa mar waan jiiftaa mar waan soo kacaa mar waan jiiftaa telefoonkeeda waa lama heli karo oo markaan waco ma helaayey habeenkaasi oo dhan
ayaanan hurdayga soo dhicin. Maalin kadib ayaa telefoonka la daaray. Waxaan ahaa nin mar walba wacaa kana warhaya telefoonka, balse telefoonku wuu dansanaa. Waxaa iga qabatay habayr. Waxaan weydiiyey bal inay telefoonka igu dhiibto saaxiibtay, maadaama aan si daran uga walwalayo. Markii telefoonka iga qabatay, murug fara badan ayaa ka muuqatay. Weliba waxay ahayd qof ilimeynaysa. Hadal walbo ay tiraahdo wuxuu ahaa mid ay ka muuqato murugo. Aana dareemayo ooyinteeda. Waxay tiri, Cabdiraxmaan, maanta 2 go'aan baa adigaa leh, inaad i heshid iyo inaad i weysidba. Adigaa go'aamin kara, waayo aniga noloshayda xaq fara badan ayaad ku leedahay, dadaal fara badan ayaad u gashay, waxaadna tahay qofaan si dhab u jeclahay. Waxaan kaa codsanaa 2 arrin, inaad mid noo dooqdid adiga. qaybta xigta la soco habeen dambe hadduu la idmo. Fadlan like saar, aragtidaada hoos inoogu reeb si aan u ogaano habka ay ku soo gaartay sheekadan. mahadsanidin.